السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا ملقها يشرفت له نداونا يساي ميل كاستي وهذا الدنيا دا كتشوكتان وبرنامج كيني هبين وناكسن موادنك هفنو لبا تضبات كهور انتيني لسعوتي برنامج كان عياخ وحان كسو قادرناي وان مركا كو قادرناي magaalada Hargeysa ee caasimada ah iyo xajmiga markaasi kororkeeda dhinaca balaca iyo dhererka iyo markaa dadka ku nool tiradooda ganacsiga iyo adeegyada bulsheed ee markaa ka jira iyo kuwa ka maqan iyo baahiyaha waaweyn ee magaalada Hargeysa markaasi hareerayala daraaso amuurta ku saabsan oo markaa nin dhalinyaro ah oo kamid ah dadka Somaliland ee markaa degan magaalada Hargeysa ayaynu ku saleynaynay barnaamijkeena waxaanu idin ballan qaadnay inaanu barnaamijkaasi wadi doono oo caasimadaha kale ee gobolada Somaliland magaalooyinka ugu waaweyn aanu markaasi barnaamijka noocaas ka sameyn doono haddaba intaynan barnaamijkeena caawa u guda gelin waxa aan jeclaan lahaa inaanu daawadayaasha ka raali gelino khalad xagga tirooyinka ah oo barnaamijka hore ee ku saabsanaa caasimada magaalada Hargeysa gaar ahaan dhinaca tirada dadka markaasi raacay oo aanu dib u saxayno barnaamijkaasi waxa markaa aanu ku sii daynay oo ninka cilmi baarihii uu markaa sheegay in magaalada Hargeysa ay ku nool yihiin 8,958 qoys oo markaasi guriyo le iyagu ay ku jiraan iyo 12,830 qoys oo iyana markaasi guriyo kira ku jira magaalada caasimada ee Hargeysa iyo markaasi dad iyagu gaadhaya 23,715 qoys oo iyaguna markaasi barakacayaala oo ku nool kambalada iyo daafaha caasimada magaalada Hargeysa tirooyinka kolka la isku geeyo waxa soo baxaya in magaalada Hargeysa ay ku nool yihiin 117,505 qoys oo markaasi kala duwani waxa cilmi baaristu markaa ay hoosta ka xariiqday in celcelisahan guryaha magaalada Hargeysa qofkiiba uu ku nool yahay ama qoyskiiba ay ku nool yihiin 6 qof oo kamida meheradahana markaasi ay u hoydaan oo ay ku nool yihiin meheradiiba celcelisahan 2 qof tirooyinka marka la isku geeyo waa 8 qof baa la oran karaa waxa ay ku nool yihiin qoyskiiba magaalada Hargeysa inta qoyska ku nool iyo 8 qof marka la isku dhufto waxa soo baxaya tirada guud ee qiyaas ahaan ku nool magaalada Hargeysa taasi oo hoosta ka xariiqayso noqonaysa 940,040 qof oo ku nool markaa caasimada magaalada Hargeysa halkii aanu habeenkii hore markaasi tirada ka khaladnay ee aanu taqooyska iyo ta markaasi guud ee magaalada Hargeysa ku noolba aad moodaysay in laga badbadiyay khalad ka raacay dhexdii oo tiro 2,000 ah markaa magaalada Hargeysa inay ku nool yihiin barnaamijka hore uu xambaaray hase ahaatee xaqiiqa ahaan waxa magaalada Hargeysa ku nool dad lagu qiyaasay 940,040 qof marka la eego qoysaska iyo nambarka loo qaybiyay ku nool tirooyinkaasi qaar ku dhow waxa iyaga qudhoodu markaasi carabaabay Habitant shirkadda amaba hay'adda loo yaqaan caalamiga ah ee magaalooyinka iyo horumarkooda caalamka ka shaqeysa inta kadib magaalada Hargeysa waxa aynu kala soo sheegnay inay ballaaratay oo fiday marka loo eego xilligii dagaaladii sokeeyay dalka ka dhaceen ee gobonimada Somaliland dib loola soo noqday ee 1991 oo haatan balaceedu ama dhererkeedu uu gaadhayo 56 ilaa 60 kilomitir oo isku soo wareega oo markaa dadkaasi ay ku nool yihiin waxyaalaha ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa markaasi dhibaatooyinka waaweyn ku haya waxa ay daraasadu markaasi ku tilmaantay inay ahaayeen ama ay ugu waaweyn yihiin biyo la'aan wada xumo iyo markaasi nadaafad darro magaalada qajabarar badan ku haysa waxaanu sii ambaqaadaynaa barnaamijkeena daraasadan waxa sameeyay nin dhalinyaro ah oo reer Somaliland oo aqoon-yahan oo bartay markaasi aqoonta ilaha maamulka aadanaha waa waxaan loo yaqaano Human Resources Management shahaadada labaad ee jaamacadaha laga qaato ayuu ku haystaa waa ninka la magac baxay Maxamed Saalax Warsame oo Maxamed Suldaan loo yaqaano Maxamed ku soo dhawow Maxamed mar labaad sida aynu carabka ku dhufanay magaalada Hargeysa ayaynu toddobaadadii hore markaa warbixin guud oo kobaca xajmigeeda iyo ganacsiga iyo adeegyada bulshada iyo dhibaatooyinka ka jira aynu ku soo qaadanay
oo waxyaabaha aynu saxaynay ay ka mid yihiin sidaad carabka ku dhufatay barnaamijkeena horena waxa daraasadaada ku salaysay xogo aad markaa ka soo heshay wakaaladda xoogga korontada wakaaladda biyaha iyo dowladda hoose kaydka u yaalla ee maxay ahayd archive-ka loo yaqaaniyo waxyaalaha la midka ah waxaad kale oo markaa adeegsatay warbixino baanka adduunka iyo hay-adaha caalamiga iyana markaa ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa barnaamijkeena waynu sii ambaqaadaynaa waxaanu qabanaynaa maanta sidii ballantu ahayd gobolka Sool magaalada caasimadda u ah ee Laascaanood koboca haddaba magaaladaasi xajmiga marka la eego ee la barbar dhigo 1990 tirada dadka balaca ama dhererka inta kiiloomitir ee isku soo wareega ee magaalada Laascaanood ay haatan hadhayso koboca ganacsiga isgaarsiinta adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale iyo waxyaabaha la midka ah ayaynu caawa ku iba furi doonaa barnaamijkeenan isaga ah waxaanaynu ognahay magaalada Laascaanood taariikh ahaan inay ka mid tahay gobolladii dambe 1980kii markaa la unkay ama la qayday waxay kale oo magaaladaasi caan ku tahay oo lagu yaqaanay 15 Oktoobar sanadkii 1969kii askari markaasi ahaa ilaaliyihii madaxweynaha kuwii markaa ka midka ahaa oo halkaa ku toogtay oo ku dilay madaxweynihii Soomaaliya xilligaasi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Cabdirashiid Cali Sharmaarke magaalada Laascaanood iyo xajmigeeda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين aad baad u mahadsantahay maxamed ugu horeyn waan salaamayaa barnaamijkan markii labaad iyo magaaladii labaad ee Somaliland shacbiga reer Laascaanoodna waan salaamayaa waan maanta faaqidi doono magaaladii Laascaanood waan dhawahay aan ku bilaabay maxamedow sideen markii hore ku bilaabaynay caasimad kasta ilaahaynu ka eeganay xajmiga ayaa ugu weyn iyo sida isbarbardhigaynay xilliyadii hore ee barisimaadkii iyo xilliyadan dambe caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood waa magaalo runtii iminka aad oran karto waa magaalooyinka tadawurka ama horukaca sameynaya xajmi ahaan magaalada markaan qiyaasay waxaan ka eegnay dhinaca control wadada dhexmarta waxaan markii hore aan helnay controlka xaggan Somaliland markaa ilaa xagga Puntland looga baxay ha waxaan markii baan ogaanay in 5 kilomitir ilaa qiyaastii 4 kilomitir iyo badh ay markaa isu jiraan labada control markii labaadna isku soo wareegii baanu daraasadeynay iyadoo runtii aad ugu mahadcelin balaca aan aad ugu mahadcelinayo dhalinyartii wariyaasha u badnaayee barnaamijka xoogga siinayay waxaan magaalada balceeda ogaanay inaanay ka badnayn 10 kilomitir inta u dhaxaysa ilaa 9 kilomitir inaanay magaaladu balac ahaan inta dhisan aanay ka badnayn saadarteed magaalada Laascaanood waxaan oran karnaa inta u dhaxaysa 10 ilaa 12 kilomitir oo isku wareega ay imika ay cagacagaynaysa watahay tirada dadka maxamedow dadka ku nool qiyaastii magaaladan waa magaalo inta badan isku xidha Somaliland iyo Puntland waxaad arkaysaa maalintii samxad aad u fara badan oo dadka ka gooshaya ama u kala gooshaya labada dhinac ay aad u badan yihiin laakiin inta u soo hooyateen inagu qiyaasayna Laascaanood kama badan karto maxamedow anigu qiyaastaan sheegay walow iyagu ay sheegeen markaan iyaga eegay meelaha xogaan ka eegay inay lahaayeen 120,000 inta u dhaxaysa ay Laascaanood ku nool 120 laakiin anigu waxaan markii aan u fiirsaday aan isku celceliyay qiyaastii 90,000 ilaa 100 kama badanayso dadka u hooyada Laascaanood maxaad ku salaysay maxamed waxaan ku salaynay tirada meelaha aan ka eegaynay magaalooyinkii kale iyo xaafadaha 8 xaafadood markaad eegto sida uma weyna Laascaanood waxay ka kooban tahay 8 xaafadood 8 xaafadood marka la oran karo xaafadiiba intaas oo 100,000 ayaa ku nool markaad magaalada xaafadeeda isdhex taagto iska intaanad suuqa bas soo aadin marka aad eegto ma weyna dhinaca marka shirkadaha iyo ganacsiga benefit-kana aad eegto oo dhinacyada adeegyada tamarta aad eegtana waxaad garanaysaa in maxaan ku raadaay guryuhu ay 13,000 Hargeysa waxaad ku salaysay qoysas guryo ku nool ama hal ahaadaan ama ha kireysnaadaan iyo barakacayaal sax
intaas oo qoys 117,500 qoys ayaad ku salaysay Hargeysa oo qoyskiiba uu 6 qof ka koobnaan karo iyo 2 qof oo meheradaha seexda marka gurigiiba 8 qof marka aad ku qiimeysay 940,000 qof ku soo baxay la saanood maxay ku salaysay maxamed iyadana dariiqada baan raacaynayo dariiqada aan jeexanay waa tan ugu hagaysa jidka aan markaa u soconay waa tahay kamaan leexan laakiin iyada xaafadaha mala iyadu de barakacayaal fara badan oo la sheegi karo laakiin waxa jira ganacsato guryaha kirada iyo guryaha la leeyahay lagu jiray waxaas ayada inta badan u badan waana magaalo inta badan la leeyahay iyabaad ka eegaysan xoogga korontada iyo xogaha waliba saxafiyiintu oo runtii iyaguna muhiim saxafiyiin baa jooga tirakoob sameyn karaan ways maxamed waa niman runtii aad u horeeya maxamed waa niman aad u horeeya runtii baana markii ugu horeysay barnaamijka ilaha ugu wanaagsan nimankii intaanan iyagaba gaadhin runtii aan ka helay bay ahayd wayna isla dhaweynaysa waxaad moodaa inay iyagu ay danaynayaan inay magaalada ay ka waramayaan waa tahay markaad barbar dhigto tirooyinkan iminka xagga tirada dadka iyo xagga xajmiga ballaadhida magaalada marka sagaashanaadkii la hordhigo laba hordhigo farq inta leeg waa soo baxay maxamed iskuma dhawaa hore maxamed kiyaad baxay u diiwaan gelin iyo baa jiray iyo kay taariikh maxay tahay tirakoob مثلا تلكوب يقول دم بيلا سميه وقال حلقي دولته جرتي محمد كان إمك فرق أنت لك بوضحية أنت قف كل راح اللي قاعد مقالده محمد وسؤال هذا ونكسن كوني يسقال بقولي استيتني أفرتي من مسكحة غير لاسعان ودب وجينينا حلقي تلكوب حلقي تلكوب كودم بي أي مريسي يحكي مقالده وأنا حلقي مدحوينيه هراء ودن كيل سكورن شري الصومالية محمد سياد بري وبوغشة كتجي وأنا حلقي وغير لاسعان ستة صولة هذلي شرعي هنوات لسنتين أيو كيوري لكن مقالده ما يفيدين تدكنا مبضنا يعني ما نكرني مامل ويكتر نظام هي نظامكي لكن مقالدي دي ما يكورين قياسنا محمد ومركا ان هلا دوكيومنتريدا ان هلاي افريجكيدي صدحكم لاسعانود لبكم قياسته نوعاس لما لا صدح اياكم نولا وتحي حق حجميgeedii leerkeedii ballaarka imka labada control aatri waa isku jiraan 4 ilaa 5 kilomitir iyo ballacan aatri waa 9 ilaa 10 kilomitir isku soo wareeg maxamed magaaladu gabigeedu waxay ahayd istaraadka wadada dheer bay markaa hore ahayd Chaynuhu dhisay intay ka tagto burco tagtay Muqdisho ilaa inta tagta ayay magaaladu ka koobnayd mana badnayno 2 kilomitir ama kilomitir ayay laascaanood magaaladu ku taxan waa tahay marka aynu u gudubno dhinaca kobaca ganacsiga isgaarsiinta wareegga lacagta adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale ka waran arrimaha say magaaladu ugu dib dhacsan tahay ama ugu horumarsan tahay marka aad barbar dhigto daraasadihii kala soo sameysay gaar ahaan tii aynu sii deynay Hargeysa oo kale su'aal aad wanaagsan maxamed horta laascaanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay gacanta dib ugu soo noqotay Soomaaliland 2007 bishii 15 xilligii madaxweyne Daahir Riyaale Kaay ayaa ciidanka qaranka Soomaaliland gacanta dib ugu soo hanteen xilligaas ay Puntland ay ka talinaysay wixii ka horeeyay haddaynu halka ka soo bilowno maxamedow laascaanood way koobcday waxay yeelatay 8 xaafadood magaalada laascaanood la yiraahdaa waxa inta badan ay waxbarashada iyo goobaha waxbarashada markaad booqato 12 dugsi hoose dhexe ayaad marmar u tireen kartaa 12 dugsi ayaad marmar u soo tireenaysaa 6 dugsi sarena way ku yaaleen 3 jaamacadood oo jaamacadaha laga qalan jabiyana way ku yaaleen maxamedow magaaladan ganacsiga ayaa aad ugu xoogan maadaama ay xuduud ay ku taalo Soomaaliland iyo Soomaaliya 200 oo xarun ganacsi in ku dhow ayaa maxamedow meheradadood ayaa ka furan waxay maxamedow iminka aad ugu sii badanaya goobaha ganacsiyada ee supermarketyada ee dadku ay ka tukaameeystaan ee casriga magaalada waxa dhaxmara maxamedow ugu yaraan 12 waxa magaaladu ay leedahay 12 goobood oo caafimaad ilaha dadka lagu daweeyay
maxaad sheegtay farmasiyadii iyo meelaha gaarka cisbitaalada ay ku yaaleen cisbitaalkii weynaa ayaa ku yaala saddex cisbitaal oo laba kalena waxa weeyaan waa laba kale dad bareefada leeyihiin maxamedow waxay leedahay waxaad ka garanaysaa in magaaladu ay imika kobcday xagga masaajidada iyo tirada oo meelaha laga ogaado bulshadu inay ay kobcday markaad booqato ilaha leydhka oo masaajidada dee waxaas si free inta badan leydh siiya wakaalada markaa jirta ee korontada shirkadaha leydhka markaad booqato 28 masaajid ayaa jira maxamedow waa magaalo cilmiga diiniguna ويسوون ما شاء الله ويهاي حق ملعامة محددة إيو وحكمديهن كوا يجونا محن كل هذا سامين توين لكل حتى وحليهن ملا عروت لو حرية أو محن كل هذا ملعامة أي هويدان بوردن وكلا هو دينت لو برا ما شاء الله وحي كلام محمد أن عاد ولا يابي ganacsiga aad ka u sii fidaya dadka waxaad moodaa inuu bilowday sanadihii haddan u dambeeyay ee magaaladu ay heshay laamiyada inay dhex maraan ayaad moodaa 2014 ilaa 2017 kan 2016 kan aynu sabootinay ayay magaaladu runtii ganacsi aan caadi ahayn oo aad u kacay ay sabab maxamedow waxaan maxamedow ku saleyn karnaa laba arin baynu ku saleyn karnaa oo runtii inaan jeclahay reer Laascaanood inay ay ogaadaan maadaama ay shaqo la'aantii ay dhintay maadaama ay waxaan ku raahday ay dhintay 2016 maxamedow magaaladu waxay ahayd magaalo aan wax qalalaasoo faraha badan oo dhibaato nabadgelyadeeduna u wanaagsan yahay qolada qurbuhuna ay gacan xooggan oo maalgashi ayaguna ay ku sameeyeen oo lacagihii ay soo celinayeen waxaan kaloo maxamedow aan raacin karnaa infrastructure-ka ama in oran karnaa kaabayaasha dhaqaalaha maxaan ku leeyahay wadooyinku ay koob ka yihiin ayaa iyaguna maxamedow waxay keeneen in magaaladii ay day fido oo maxaan ku rahday ganacsiga oo laamiyadii ka soo horjeestaan hal waday lahayd baad igu tiri hal wado taa wadnaha ah intii ka dambeeyay 2010 intii baa dhismay kale ha maxamedow waa dhismeeno mashruucii USAID ayaa runtii magaalooyinka Laascaanood iyo Ceergaabo runtii ku soo daray baan oran karaa gobolada Soomaaliland inay yeeshaan laamiyo waana magaalooyinka runtii ganacsiga xoogan mise wada ayaa dhex oo laamiya magaalada Ceergaabo Laascaanood waxa magaalada Ceergaabo maxaa xalay magaalada Laascaanood maxamedow magaalada Laascaanood waxa dhex mara in ku dhow 8 wado ayaa imika loo sameeyay oo cusub oo laami oo intee kilomitir bay noqonayaan wadooyinkaasi kuwa ugu dheer iyo kuwa ugu gaaban qiyaastii kilomitir midiiba ay noqonaysaa qiyaastii kuwa ugu dhaadheer la sameeyay xaafadaha laga sameeyay waxay kuwaasi maxamedow aynu sheegnay hore u sheegnay halkii kilomitir ee la sameeyaa meel aan wada lahayn inuu wato ganacsi xoogan gaadiidkii iyo isu socodkii danyarta oo maxaan ku raadayay bajaajyadii iyo waxyaabo yar yar ay nolosha aadamaha danyarta taabanayay ayaa meeshii maraya waxa marka imanaysa in meheradihii iyaguna iyo meelihii dukaamadaha ay bataan marka waa magaalooyinka helay 8 wado maxaan ku raadayay xilligan xukuumadan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayeen oran karnaa ay la jaan qaaday hay'adda USAID dawladdu maxay ku darsataa adeegyada bulshada hay'adda USAID iyo shacabka gaar ahaan qurbajoog maxamedow magaalada Laascaanood maxamedow markaan ku horgalayay hay'addu markii ay sameeysay wadooyinkan waxay wadatay shuruudo wadooyinkan lagu hirgelinayo si jawaabka looga soo saaro dadweynaha iyo dawladda lafteedu marka boqolkiiba 40 ayaa iyaga laga doonayay wadooyinka la sameeyay dadweynaha iyo dawladda hoose waa tahay hadii Hargeysa oo kale aynu soo qaadano dhibaatooyinka ugu waaweyn shacabka ku nool magaalada Hargeysa haysta waxa kamid ah wada xumo halka waxa muuqata in Laascaanood ay ka badbaaday wada xumada talabaad Hargeysa soo raacaysa ee aynu ka soo hadalay waxay ahayd in mushkiladda ugu weyn نظافة الطرو يبيلان أرجعوا وعلى هاي لاسعانود
sidee bay arrimaha iyada ay wax uga jiraan dhinaca nadaafadda markaad fayadhowrka eegto iyo dhinaca biyaha maxamed waa su'aal aad u wanaagsan waana nolosha asaasiga ah ee bulsho kastaaba ay leedahay meelaha ugu muhiimsan ee laga eegi karo inay bulshadaasi fiyowdahay ama ay badbaaday maxamed magaaladan waxay leedahay aan dadka u sheegay laba shirkadood oo qashinqub oo la kala yiraahdo UDD iyo Gool labadaas shirkadood waxay si weyn ugu howlan yihiin inay magaalada qashinka ka guraan waa laba shirkadood oo u madax bannaan inay magaalada qashinka ka guraan waxay kaloo leedahay magaaladani markaad eegto dhinaca qashinka in berigii ka horeysay golahan deegaanka intii ka horeysay ay ahayd magaalo aad u qashin badan lafteedu oo meel walba qashinka la iska dhigo laakiin waxaad moodaa maxamed 2014 ilaa 2016 in dardar xoog leh la geliyo magaaladii ay noqotay magaalo runtii kullayba magaalada qashinka dhamaan maayo oo wataan sheegnay qashinka maalinlaha inuu socodka ku yimaado xataa waana magaalo aan oran karo waa magaalo ka badbaaday qashinka marka loo eego caasimadda Hargeysa tan ahaan marka loo eego sidee loo maamulaa loo maareeyaa qashinka magaalada Laascaanood qashintee leeg baa maalintii soo baxa see loo maamulaa see loo ururiyaa see loo qaadaa حكي سلقية محمد هو سؤال ونكسن قشنك لاسعانو صوب حلقو قياسا 9 طن oo qashina ayaa lagu qiyaasaa in ku dhow ilaa 8 طن oo qashina waxaana lagu maareeyaa meelaha xaafadaha aanay gawaadhidu iyo xoogaan u gali karin waxay isticmaalaan kaariyoonayaal ka soo dhex ururiya waxay kala sameeyaan goobo yar yar oo ay qashinka ay ku ururiyaan oo qashinka kaga qaadaan waxa kale maxamed oo jirta markaad eegto caasimadii la barbar dhigo iyo Laascaanood in caasimadu ay lahayd 4 shirkadood iyadoo ah 60 kiiloomitir ilaa 56 kiiloomitir isku ama 10 kiiloomitir waxay heleen laba shirkadood marka waxaad moodaa in dadaal xoogan وهالكا جرو هدي مركا عاصمة هرقيسة أي هلي لهيد 60 كيلومتر با 10 كيلومتر با لبا شركات وحن وران لهين عاصمة هرقيسة 10 شركات با كفلان 10 شركات با كفلان أما لبا 10 شركات أو هرقيسة قشن كجورا أفرتي بقول يسقاشن كي يكون تن يمرور بيسوي لبا بقول يطلبيه 10 تن كلية لقى قاعدي مركا واحد مودسة إني مقالة عيرة كومن هذا في ضيسة ganacsatadii iyo cid waliba ay guryaha quruxda badan maxamed markaad tagto ay ku soo jiidanayaan in maxaan ku raadayay qashinkaasi la oran karo in waa la maareeyay oo meelahan ka eegay bay kamid ahayd inta shirkadood ama agab ay leeyihiin ayuun baa qashin qaada baabuurtii shaqaalaha maxamed ama qashinka u xilsaaran magaalada Laascaanood maxamedow way ku filan yihiin qashin ahaan walow aan oran lahaa inay kordhsadaan cagafyadan qashinka rara meelaha qashinka dadku ay ku qubaan inay kororsadaan aan u soo jeedin lahaa laakiin waxaan oran karaa magaalada Laascaanood dad dhex marto qashin fara badan oo aynu oran karnaa waa qashin maxaan ku raadayay kan caasimadda u dhigno ama u dhow maaha boqolkiiba 20 ba habeenkii laga yaabaa ama boqolkiiba 20 inay u hoydaan qashinku oo si boqolkiiba 80 laga saaro boqolkiiba 80 laga saaro xagee la geeyaa maxamedow waxa la geeyaa magaalada meel ka baxsan oo iyagu ay ku qubaan oo runtii aad uga fog wayna runtii xiran oo runtii aan la geli karin marka waxaad moodaa golaha deegaanka ee cusub ee iminka inuu isagu dardar xoogan uu ka galay dhinaca banaynta jideedka iyo fayadhowrka inay ilaaliyaan waxaan kaloo maxamed rabaa inaan xuso muwaadiniintu hadaanay rool lahayn oo aan iyagu door lahayn oo doorkooda aanay jirin inaanay wax allaale wax socdaa jirin maxamed sideeda wado aad arkayso 60 mid oo solar system ayaa dhex mara oo halkan dabka tamarta lagaga dhaliyo cadceedda lagaga dhaliyo waxaan u mahad celinayaa maxamedow wasaaraddan macdanta iyo tamartu markii iyaguna ay noqotay wada kasta markii la sameeyo contribution baa dawladda dhexe laga doonaya dadweynihiina waa kuwan boqolkiiba 40 baa iyagii laga doonaya iyo celiskii mashruucina waa kanoo isaguna boqolkiiba 60 lacagaba iyagana meeshii oo yaala dawladda dhexe oo wasaaradda tamartu iyadu doorkooda way ka soo baxeen boqolkiiba 80 markii ugu horeysay maxamedow ee la arko
tamarta laga dhaliyo cadceedda oo wadooyinka laamiyada la mariyo ayaa laascaanood habeenkii markaad marto aad arkaysaa wadooyin qurux badan oo ifaya oo aanad ka baqayn intuu moobilkaaga qaato ama ku dafo ama aad maxaan ku dhahdaayay sida caasimadda habeen walba gaar ahaan dadka nugul dumarka oo kale waxa laga cararaa moobilada waxa laga cararaa shandadaha mararka qaarkood nafsooda halista geliya taa way ka ladan tahay baad leedahay magaalada laascaanood oo waxa sababay iftiinka faraha badan iyo bulshada oo kobcaysa maxamed waxa kale oo jira 3 nin oo muwaadiniina oo runtii ilaahay khayr ha siiyane bulshadooda kaalin wanaagsan ma wada heshaa leerka imika midran solar systemka waxaan loo yaqaan maxamed laba shirkadood shirkadda Lasco la yiraahdo iyo shirkad kale ayaa iyaduna magaaladan nalka siisa wayna hadda bilaabeen gaar baa loo leeyahay waxay ku sii siqayaan in iyagu la jaan qaadaan caalamka si ay tamarta uga dhaliyaan oo ay cadceed uga dhaliyaan waxa ay dadkaasi ay doonayaan inay capacity-ga leerka ee bulshadu 24 saacadood horta way helaan leyd ku filan oo ka jaban maxaan ku dhahdaayay leerarkan kale ee magaalooyinka kale marka loo eego Hargeysa waa qaali aad buu qaali Somaliland ba waxa lagu tilmaamaa meelaha adduunka nalku ama leydku ugu qaalisan yahay marka waxa leedahay laascaanood leyd jaban bay adeegsanayaan awoodda cadceedda tamarta lagaga dhalinayo maxamedow waxaan oran karnaa waa magaalo in ku filan 24 saacadood qoyska 8 qof ka kooban imisoo bixiyaa bishii tusaale ahaan leerka ma eegteen xagga leerka ugu yar waxay ka qaadaan $8 bisha 12 kilowatt ay iyagu yiraahdaan kilowatt bay isticmaalaan wixii ka yar waa $8 inta Hargeysana way ka badan yihiin Hargeysa waxa lagu leeyahay waa $12 farqi baa markaa u dhaxeeya marka danyaraha loo eego hadaynu ku noqono dhinaca shirkadihii qashinka oo kale yaa la xisaabtamo hadii ay wax ka xumaadaan yaa la xisaabtamo oo dabagala inay hawshoodii sidii loogu talagalay oo ay u qabanayaan maadaama ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay iyo kuwan leerkuba ama nalkuba yaa la xisaabtamo ay hoostaga maxamed dawladda hoose waxay ka mid tahay waxyaabaha ay inta badan ku warwaraan inay qashinka magaalada dadkuna way baraarugsan yihiin maxamed muhiimadu waa in dadku baraarugsan yihiin oo la xisaabtan qoyskii misal laga qaadaa bishii marka qashinka laga qaadayo tusaale ahaan meheradahaas intee laga qaadaa maxamed waxaan oran karnaa magaalada laascaanood 1,000 shilin sidii magaalada Boorama oo aan iyadana aan eegay ayaa laga qaadaa maalintii qoyskii shilin oo u dhigma wax ka yar 25 senti oo dollar 25 senti wax ka yar waxaan 0.16 buu noqonayaa marka waxaan oran karnaa waa magaalo labada marka wiigiiba guriyuu soo saaran qashinka Hargeysa waxa laga qaadaa sidii barnaamijka ku xusnay qoyska $5 baa iyagana laga qaadaa meheradahana 7 ilaa $8 baa laga qaadaa caylgaabo waxaan laascaanood meherada imsa laga qaadaa midna huleelka wulida waaweyn ee ku yaala ama meheradaha waaweyn ee qashinka badan soo saara maxaa maalintii laga qaadaa maxamed magaalada qashinkeeda hudheelada waaweyn ee ku yaala sida hoteelka Al-Hayat oo isagu ah Xamdi la yiraahdo oo ah hudheelada ugu waaweyn waxay ii sheegeen mar aan weydiiyay inaan kamid ah ku sugnaa aan waliba u fiirsaday subax hore oo qashinka la qaaday imsa la idinka qaadaa bishii baa iyaga lagu xisaabtamaa bishii marka iyaga waxa laga qaadaa qiyaastii $10 hudheelka weyn Hargeysa ka qaalisan tahay ma oran karin marka ma kama qaalisan maxamedow hudheel weyn Mansoor buu dhigma hudheelkan ku sheegay Mansoor maxaa laga qaadaa Hargeysa tusaale ahaan darasidaad samaysay qiyaastii la iyagu waxay ka qaadaan $30 bishii bay ka qaadaan oo iyagu way ku qanacsan yihiin marka la eego laakiin qashinka hudheelka yaalada ayaa ka badan waxay ahayd inay hudheelada waaweyn awood saaraan kuwa dhexe maxamedow waxa laga qaadaa bisha oo dhan iyaga waxa laga qaadaa $6 iyadoo macal dareeraha soo saara qashinka dareeraha inta u dhaxaysa $7 qoyskii bishii imsa dollar laga qaadi karaa hadii maalintii kun laga qaadiyo waxa laga qaadi karaa $3 ilaa $4 qoysaska qashinka soo saara laakiin laba jeer haduu soo saaro wiigii baan oran karnaa wuu ka jaban yahay marka 10,000 shilin $2 laascaanood ma laga qaadaa maalin kasta xashiishka waa laga qaadaa maalintii ilaahay soo gooyaba shirkadahaasi maxamed way shaqaynayaan xaafad kasta ma leedahay meel qashinka loogu talagalay oo ku meel gaar ah oo lagu ururiyo oo hadhowta shirkadahaasi ka qaada gawaadhidaaba subaxii ku soo kala maxamed gawaadhidii saa u dhex wareegaya baad arkaysaa xaafadiisa u wareegaya oo hoonka u ridaya oo qashinka la soo saar waayahay dhinaca kale magaalada laascaanood haddaynu dhinaca amniga iyo deganaanshaha siyaasadeed aynu eegno
waxa ay ku taalaa buqcad ay kacdoonu ka jireen 25 sanadii ugu dambeeyay oo dadka deegaanka ku nool iyo dadka metelay siyaasiyiinta ama madax dhaqameedka ah xaalkoodu wuxuu u dhaxeeyay Hargeysa Garowe Muqdisho Garowe Hargeysa god diin god kureygel arrimahaasi waxay gobolka ku keenaan guud ahaan gaar ahaan magaalada Laascaanood deganaan la'aansho siyaasadeed iyo arrimaha amniga oo xumaada arrimahaasi sidii yihiin haatan maxamedow waxaanu eegaynaa dadka maskaxdooda dib u celinaynaa 2010 ilaa 2012 dilalkii ugu faraha badnaa ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood sanadkii 2012 ilaa 2010 waa 2 sano gudahood 2016 waxaanu oran karnaa dadaal fiican baa la sameeyo dilalkii way yaraadeen way inta hore intee dil baa ka dhacay 12 ilaa 14 labadaas sano maxamedow qiyaastii waxaanu oran karnaa 4 dil marka laga reebo oo labana dhaawacaay 2 dil kaliya marka laga reebo waxa dhacay 36 dil ayaa ka dhacay labadaas sanadood magaalada Laascaanood gudahood magaalada Laascaanood gudahood 2016 kana laba ka dhacay marka waa 39 dil maxamedow in ku dhow qiyaas sax ah markaan anigu weydiiyay waxan waa maga iyo dil iyo waa xiniintirsi bay yiraahdaan Soomaalidu waa xiniintirsi bay yiraahdaan ha 39 dil ayaa Laascaanood gudaheeda ka dhacay 2012 ilaa 2016 ilaa 2016 waa 6 sanadood ayaa 39 dil oo bareera oo markaa argoosi inta badan u badan ayaa ka dhacay xasaba maxamedow waa dhibaatada Laascaanood inta badan dib u dhaca waa tahay ay aan hoosta ka xariiqayo ayay ka mid tahay daraasadeeduna ay taabatay waxa sababayay dhowr qodob laba qodob baa ugu waaweyn waa tahay labada qodob ee ugu waaweyn waxa weeyaan aanadan aynu raahno Soomaalidu nin wax dilay oo hadana nin aan waxba geysan loo dilo intuu baxsado ninkii wax dilay dabadna nin miskiin oo kale la toogto suuqa iska maraya shaqaysan la seeyo iyo dhinaca aad soo sheegtay bariga iyaguna istuudooyinka siyaasiga iyana waxay sababeen in dilalkani qayb ka qaataan laakiin maxamedow waxa lagaga nasan karaa 2006 hoos baa u dhaceen garaafkii dilku hoos baa u dhaceen waxaad moodaa dadaalka maxamedow dadaalka runtii la galay ayaa wuxuu ahaa dadaalka madax dhaqameedku ay sameeyeen odayaasha Laascaanood maxamedow ku nool waa garaado soo jireena oo taariikh dheer leh ma aha kuwan iska wada cimaamatay maxaan ku raadayay xisbiyada iyo siyaasadda ee inta badan aragnay maxaan ku raadayay iska dhaxboodaya wax walba kuwan la bakhti afuufo ama kuwan gacan ku rimiska ama gacan baclaha loo yaqaan koofiyad baclaha aynu raahno kuwa maxamedow kuwa ma aha niman dadku soo doortay oo doorka dadka ka yimid waa nin la garanayo aabihii la garanayo isaga la garanayo isaga maxamedow waa dhaxal maxaan ku raadayay maxaan ku raadayay garaadadani waana de ka awow waxaan oran karnaa maxamedow waana muhiim in saldanada lagu hayo maxaan ku raadayay soo jireenka inaan mid la iska cimaamatay aanay wadanka waayo khalkhalka ugu faraha badan ee maanta siyaasadeed ee wadanka ruuxaya ayay ka qayb tahay cimaamadan horboodaysa wadanka soo butaacday yani waliba uu qaatay cimaamada rishwaanta iyo koofiyada dukaanka ka soo iibsaday markaa dadda iyo bakoorada waa madax dhaqameed waa suldaan ama waa caaqil ama waa boqor ama waa bilaayo kale mid casiyo mid madow maxamedow waa meel runtii aan oran karo waan u bogay shakhsiyan maxaan ku raadayay chief caaqilada iyo garaadada iyo runtii dadaalka marka door bay ka qaateen doorkaasi hoos u dhacdo argoosiga hoos u dhacdo waxa kale maxamedow meesha aan arkay oo weaknesska jira ama waxa goldololada jira xilliga iyaguna imika markii ay odayaashu la shaqeeyeen yara dhiirtay ciidamada amniga booliska walow iyaga laftooda ay dilalkaasi ay ku jireen iyaga laftooda lagu dilay niman booliis laftooda labisan laftooda lagu dilay haddana maxamedow waxa jirta intii la rabay
oo maxaan ku dhahaa ku filnaa laascaanood maan arag oo ma odhan karno laascaanood ciidanka booliisku intee baad joogtay magaalada laascaanood xilligii aad darasada sameeyay maxamedow xilligaan isku beegay horta waxay ahayd xilligii diiwaangelinta ayaan isku beegay oo aan laascaanood rabay qaabka bal ay u fahansan yihiin inay Somaliland yihiin inay xaq u leeyihiin inay kaarka qaadan karaan oo inay berrito waxa mustaqbalkooda ay kula qaybsan karaan maxaan ku dhahaa gobolada kale inay laakiin runtii maxamedow top dadku wax dhiba ma leh watahay laascaanood waxa ku nool reer qura waxyaabahay ka duwan tahay meelo badan oo kamid ah caasimadaha Soomaaliland reer qura ayaa ku nool oo waliba laba jiribo hoose sax ayaa ku nool sax maxaa keenay markaa in arrintani saa ay u baahdo oo dilalka argoosiga bataan oo gacanta loogu qaban kari waayo maadaama dadku iskaranayaan oo wadadii wada ehela oo hilba ah oo xididii xigaada oo magaalo qolo ku wada nool garaadina ay jiraan aad ka soo warbixisay carab ku dhufatay oo ah garaado taariikh dheer leh oo muddo dheer dadka u soo talinayay isla mar ahaantaana aan ahayn kuwa gacan ku rumaysa ay yihiin kuwa doorka dadka ka yimi oo dadku ay soo doorteen oo la xishmeeyo ama la tixgelin karo wixii talooyina ama go'aana ee ay soo saaraan maxaa doorka hoos u dhigay garaadada markaa oo ay dilalkan u xakameyn kari waayeen muddada 2010 ilaa 16 9 dilal dhacay wax yar ma aha magaalo caasimada gudaheeda oo aan dagaalo kafoola iyo dad reer guuraayo islaayay aan ahayn dilal ka dhacay magaalada gudaheedii maxaa loo soo afshiri waayay maxaa doorka garaadada awood leh caqabad ku ah oo ka hortaagan inay markaa xal u helaan maxamed waxaan oran karnaa waxa maadaama ay reer kaliya yihiin saad soo sheegtay dilalkaasina ay dhaceen laba qodob baynu ku salayn karnaa waa mid horta waa magaalo runtii ay jireen qalalaasa siyaasadeed oo runtii jahwareer fara badan ayaa laftooda garaadada laftooda iyagana la kala jiidanayay ayaa iyaguna istiidooyinka saameyn ku yeelatay garaadadii ku yeelatay waxa kale maxamedow iyana imanaysa way furnayd oo waxay ahayd magaalada furan oo meeshii loo carari karaaba dee loo carari karo jihadii loo carari karaaba loo carari karo waxa kale maxamedow jeedaa ninkii wax geystaa garow iska tagi kara ama boosaasu ka tagi meel kale ayuu meel kale iska qabanay ilaa muqdisho tagi karay waxa kale niyadana maxamedow jirta aan oran lahaa ciidan kale qaar burcay abtiyeedu iimayay intay laascaanood wax ka geystaan soo deeyimanay burcay ama boorama tagi waxa iyadana maxamedow jirta waxaan ku xooganayn ciidamada booliska waxaan kaloo maxamedow ku xooganayn oo runtii aan oran lahaa in la tayeeyo ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliland ee gobolka gaar ahaan caasimada nabad sugidda kuwaasina runtii maxamedow waa dawladii waa indho quraanjay leedahay waxaan oran karnaa maadaama dilkii la yareeyay waxaad moodaa in iyaga laftoodu ay dareemeen oo maxaan ku dhahdaayay in dee war la helo marka hore inaan wax dhicin ayaa ka muhiimsan in qof la dilo qashinkii baynu ka soo sheekaynay inaanu magaalada dhibaato ku lahayn caqabaadka waaweyn magaalada hortaagan hargeysa 3 baynu ku celiyay aynu hoosta ka xariiqay dhibaato waaweyn waa biyo la'aan wada xumo iyo nadaafad darro laascaanood halkee bay u dhimatay waa maxay caqabaadka ugu waaweyn la oran karaa waa u gaar sida hargeysa ba saddexda aynu uga soo dhiraan laba maxamedow u gaara reer laascaanoodna inay iska qaadaan midina waa runtii ma xoogana oo imika waxaad moodaa inay wax fahansan yihiin laba oo u gaaro maxamedow biyo la'aan ayaa jirta laascaanood male biyo gelin magaalada dhan qasabado iyo waxaas ma jiraan waa biyo laga soo qaado balli kamida balliyada waaweyn biyaha durdurka ay isticmaalaan oo koonfurta laascaanood ku yaala dhiyuc xunshaa la yiraahdaa halkaas horta laascaanood biyaha ka hesha oo waan booqday waa balli weyn booyadaha maxamed oo dhaamiya
waxa kaloo maxamedow caqabad ku ah aanada faraha badan xagga amniga ayaa laascaanood aynu oran karnaa dhibaato ku ah qodobka saddexaad oo isagu aan xooganayn qurba joogto iyagu ah kuwa la kala safta hadii dadka ehelka ee reerka ee walaalaha ee maxaan ku radaa reerka qura ah ee isu muuqda iyaga walow aan oran lahaa magaaladu ha noqoto magaalo cid kastaaba digto oo si meesha isu muuqadku uu meesha uga baxo maanta hadii hal jilib dego waxa loo si kala baxaya laba qoys Soomaalidu waa basal qabyaalada basal iyo qabiilka waa tahay dhinaca qurba joogka waxaad carabka ku dhufatay magaalada way dhisteen oo dhismayaasha iyo balaceeda iyo ganacsiga ka jira iyo shirkadaha ka shaqeynaya iyo masaajidada iyo malcaamadaha iyo jaamacadaha iyo iskuulada iyo saameyn bay ku leeyihiin waxa dhaqaajinaya waa dhaqaale ka yimi inta badan qurba joogga ama dad qurba joog oo intay soo noqdeen wadanka degay oo maal ka shaqeeya maxay caqabad ku yihiin oo aad leedahay waa dhibaato jirta haba yaraatee halkeebaad ka ursatay maxamed waxaan ka quursaday walow ay hadda yaraatay 2015 ilaa 2016 laakiin intii siyaasadda isdiidani ay jirtay iyaguna waxay ahaayeen kuwa maalgelinta la daba joogay cidda markaa wadanka qalalaasaha ka waday dabkay hurinayeen halkay damin lahaayeen lacagtay soo diraan maxamedow way ku filan tahay laascaanood inay maxaan ku radaa qoys walba ay maxaan ku radaa nolol maalmeedkiisa laakiin hadii rasaas la iibiyo oo laba ehel oo walaala oo ilmaadeer oo laba halkeen dhibaatada kama mid noqon laakiin imika 2016 maxamedow sanad ka dhamaaday guryaha ugu faraha badan ee laascaanood dhismay ugu quruxda badan ee ganacsiga maxaan ku radaa laascaanood waxa iska la qurba joog waxaan maxamedow aan rabaa inaan xuso in muwaadinku isagu dhibaatadu uu dareemayo oo nin caruurtiisii ka kaxaystay oo Ingiriiska iyo Mareykanka degan aanu maxaan ku raadaayay magaalana aan idin ugu jirin inuu maxaan ku raadaayay maxaan ku radaa tolay marka la yiraahdo isna oo sooranayo wallahi reerkii baa soo qayliyay maxaan ku raadaayay la gaad saddex nin oo muwaadiniina oo reer laascaanood maxamedow saddexdaa nin waxaan oran karaa waa furaha laascaanood oo ah dhinaca horumarka waxaan weeyaan maxamedow nin kamida nimanka qaadka ka ganacsada qaadku maxamedow waa daraagis waa maandooriye bulshadana dhibaato ku haya iyo dib u dhac badan haddana maxamedow ninkan waxaa la yidhahdaa nin ina Jabuutaawi baa la dhahaa qaadku ka ganacsada wuxuu taraa maxamedow wadooyinka aad arkaya inuu soo sheegnay dadkii jeebka furay ee dhiibay lacagtay ahaayeen wuxuu kaloo maxamedow ku hawleeyahay gobolada Sool iyo Sanaag solar systemka cadceedda laga dhaliyo in dhaqaalaha maxaan ku radaa qaadka uu ka helay in dadka ku maalgeliyo oo dadku leed jaban ay helaan oo ka sii jaban hadii barnaamijka uu ku guuleystana maxamedow leedka ugu jaban waxa heli doona gobolada bariga Soomaaliland rag kalena waxa kamid ah Cabdi Bootaan la yiraahdo oo isaguna ganacsade caadi ah oo dadka ganacsatada caadiga ah iyo inay iidleen la yiraahdo waxay helaan bay dadka ku celiyaan inay waan helaan kamid ah ayay ku celiyaan ayay bulshada ku celiyaan waa nimanka aan la'aantoon waxa kamid ah solar systemka garanay maxamedow Jabuutaawi nimanka kale maxay ku celiyaan bulshada maxamedow waxay ku celiyaan wax kasta oo looga baahdo oo wadooyinka ah waa nimanka maxaan ku dhahdaay dadka for example ka waa inay dhiibeen tusaalaha u ah marka aragto dhinaca amniga hadii looga baahdo waa iyaga ku ganacsanaya dhinaca maxaan ku dhahdaay qaaran ururinta hadii la yiraahdo way dhiibaan maxamedow bakhayl hadii ay magaalada aday saddexdan nin oo ah saddexdan nin ay ganacsatada waaweyn ee Laascaanood kamida haday bakhaylin ahaan lahaayeen wax badan ma suurtageleen Hargeysa iyo Laascaanood waxay wadaagaan biyo la'aan fursada biyihii waa misaarkaagu adoo barbardhigaya Hargeysa oo 20,000 ay fursadu tahay biyaha oo Soomaaliland tarankuna yahay $2 ayaa Laascaanood laga siiyaa oo u dhiganta 14 sixir bararka marka loo eego marka Hargeysa way dhawayaan 20,000 ha way isu dhaweeyeen inay isu dhaweeyaan ba maxamedow ma ahayne Laascaanood oo aan biyo qaraar oo hadii ceel looga qodo biyo qaraar noqonayaan oo biyo gelin hadii la yiraahdo sameeyay magaalo aan biyo macaan al'aan lagu guuleysan dadaal kasto la galo biyo macaan maxamedow lama hayo watahay waxaan joogay xilligii isdiiwaangelinta wadaxayaasha magaalada Laascaanood
سبي وسعتي هوشاتي هلكا ودadku ay u dareensanayeen ama ay u diidanayeen ama ay u soo dhaweynayeen labada dhinac kulli waa jirayaan dad ogol iyo dad diidan maxamedow laascaanood waxaad moodaa in bulshadu ay yara baraarugsan tahay 2016 ilaa 2015 maxamedow marka ay dadku arkaan in loo soo jeedo oo dawlad shacab dano barnaamij nolosha dadka hadii la dareensiiyo oo qofku maxamedow meel taagnaan maayo anu carruurtayda ama carruurta ila dhalatay ma doonayeen inay barakacaan markaan arko waxaan jirin oo imanaya markaan arko ganacsigii habeenkii markaan arko magaaladii light solartii ay marayso meesha la hiigsanayay hadafku markii magaaladu u muuqdo maxamedow laascaanood way isdiiwaan gelisay baan oran karaa intii badnayd 80% dadka isdiiwaan geliyay waxayna dareensan yihiin Somaliland ay wax la leeyihiin Soomaaliya Somaliland hadii hadhow wada hadal yimaado natiijada ka soo baxaysa Allahu a'lam in la isdiidi doono iyo dhinaca u dhici doonto waa siyaasad laakiin waxay ogaadeen meesha ay ka maqan yihiin doorkoodu uu yaalo maxaan ku raadayay xaqoodu yaalo hay'ad haday tahay iyo haday tahay mashaariic caalamka iyo beesha caalamka talagoyn iyo saami qaybsi siyaasadeed iyo talagoyn waliba inay kula doodaan hargeysa intay miiska yimaadaan kula doodaan oo ay maxaan ku raadayay xaqooda ay dhacsadaan ayaan oran lahaa ayay maxamed maanta ay fahansan yihiin inta badan inta kale hadhay maxamed waa hadii wada hadalka khaatumo iyo Soomaaliland u socda ay si wanaagsan u dhamaadana waxaan arki doonaa in maxaan ku raadayay wax walba ay noqonayaan wax wanaagsan hadii dawladdu la dhil karayso mucaaradka wada hadalada aad ku fatay soo maamulka Soomaaliland iyo maamulka khaatumo oo dhowr fadhi imka ay dhaceen natiijooyin iyo ifafalayaal wacanina marka ay ka muuqdaan fadhiyada marka loona balansan yihiin dadka gobolka say u arkaan oo ama ay u diidayaan ama u soo dhaweynayaan maxamedow dadku way daaleen وتن سو شيغنايو de meeshii loo maxaan ku raadayay Muqdisho Hargeysa Garowe ay dadku ka dhaxeeyeen maxaan ku raadayay de wax rajooyin fara badan oo jiray oo dhinacii Soomaaliya ahaa oo maamul goboleed la bixiyo iyo wax noocaasina ma jiro oo way soo xirantay dantu dadku maanta dantay ogoliye dadka xaqooda hal la siiyo Somaliland ha noqoto waxa tahay cilmi baaris waxaad xoogaal u tahay lixda caasimadood Somaliland gobolada waad martay dadkaad la sheekaysatay waxaad u koor gashay qaabka adduun aragga iyo fikirka dadka marka inuu reer laascaanood halkaa dhigo dadkan kale ee gobolada ku nool gaar ahaan matalan Togdheer oo kale Saaxil oo kale ama Hargeysa oo kale sidee bay u arkaan wada hadalada iyo gobolkaasoo ama gobolada barigaba ilaa iyo Sanaag bari ilaa Sool ilaa Buuhoodle leh say u arkaan maxamed dadku way soo dhaweynayaan oo shacbiga reer Somaliland waa dad walaala dadkan la hadlayaan ajnabi maaha waa qoyskeeni waa reer kamid ah reeraha Somaliland ee habarwadaaga iyo hilbiya habarwadaaga watulaha waa wada hilbiya habarwadaaga waa xidid iyo xigaal iyo xumdureys ku yaale dad maxamedow aniga cadkii la jaraabada uu noqonaya adiga hadii lagu eegeego waa dad baa la wadayahay Somaliland waa qoys baan oran karaa wax la kala wadooda meesha ma yaalin waxa maxamedow aad ugu kulul inay aad u soo dhaweynaya gobolka Togdheer maxamedow gobolkaasi tan intii mar la soo hadal qaaday in mustaqbalka la doonayo in wada hadalku uu ka dhaco burco waxaan intii aan iyaga laftooda baarista ku jiray waxaan dareemayay abaabul xoogan xilligii qabyatire ninkan oo la doonayo in la wada hadlo oo xataa aan la doonayn in maxaan ku dhahdaa xurgufad badan iyo maxaan ku dhahdaa colaado maxaan ku dhahdaa ka dhaca gobolka buuhoodloo kale qorlugudo waxa in la qaboojiyo oo aan xaalad dambe oo maxaan ku dhahdaa cirka u sii shareerta aanay jirin ayaa maxamedow waad dareemaysaa waa tahay dadkan matalan Togdheer oo kale ama Muqdisho oo kale dadka ku nool ma dareensan yihiin waxa dadka fogeeyay ee ay ku maqan yihiin iyo in saami qaybsigii iyo talagoyntii
maamulka waddanka ay ka qatan yihiin maxamedow marka madaxweynihii iyo ra'iisul baarlamaankii iyo golihii guurtida iyo wasiiradii naqwaha ahaa aad moodo in ay dhinac ka xiran yihiin dadka ma dareensan yihiin togdheer iyo inay tanaasul sameeyaan oo sidii macaan jecesha meelahan muhiimka ay ku urureen dalka dadka la leh si midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimadu u noolaato iyo wax iswaansho iyo wax wada lahaanto inay talaasulaan oo ka kacaan kuraasta qaar dareenkaasi ma kuu muuqday ma jiro maxamedow markii labada gobol aynu kala qaadno hargeysa waxaad moodaa Somaliland fara badan iba inaanay xagaa ka xigin dadka intooda fara badan marka tiraahdo waxaan asxaanood ama ceyrigaab marka tiraahdo ha magaalooyinkii xaq bariga waxaad dareemaysaa fogaanshiyo iyo aanu fikir fara badan iyo macluumaad fara badan aanu ka haysan waxa sababaya maxamedow dadka reer Hargeysa oo xaq fara badan Hargeysa yaala dawladii baa ah waxba caasimadii baa ah maxaan ku raahday waa dad iyagu dawladnimada soo arkay waa dad iyagu ku mashquulsan sixnigan meesha yaala keegan Hargeysa yaala bay ku mashquulsan yihiin marka keegan dhadhanka ay ku hayaan Hargeysa ma ogola inay maxaan ku raahday cid kale la dacaa inay cid kale la cunto ay timaado ama Senegal ha ahaato ama Sool ha ahaato laakiin gobolka Togdheer maxamed waxaan aaminsanahay inuu uga kici lahaa kursi kasta oo maxaan ku raahday iyagu leeyihiin togdheer wuxuu ku fadhiyaa madaxweynaha wuxuu ku fadhiyaa ra'iisul baarlamaanka wuxuu ku fadhiyaa golihii guurtida maxamedow haddii ay qodobada ay soo dhigtaan waxaan dareemi doonaa maxamedow ay qolada khaatumo nidaamka ay soo dhistaan waxaan dareemi doonaa shakhsiga togdheer ka yimid maalintaas aan arki doonaa saddexda xisbi qaran waxaa hogaaminaya rag meel ka soo wada jeeda sax dhibaatada sool waxaa la qabtaa kaba yaraatee oo cabashooyin iyo tabashooyin badan ka jiraan awdal loo qay maxamed awdal dayadu madaxweyne soo noqotay oo daahir yaala 8 sano wadanka ay isagu ka maamulayay al'aanana madaxweyne ku xigeenkeedu banaan buu yaala waxaan aaminsanahay reer sool hadii xaqooda ay helaan iyaguna ay ku dhiidiyaan oo iyagu Somaliland meel ay ka go'do oo maxaan ku dhahday dadkan waxoodii haysta ay la boobaan in aan kursi laga haysanaya reer sool aan jiri doono waa tahay gabagabada barnaamijkeena hadii aynu ku sii siqno daraasaad samaysay ku saabsan xajmiga iyo koritaanka caasimadaha Somaliland tirooyin baa ka muuqda dhinaca dadka dhinaca ballaca iyo dhererka magaalooyinka dhinaca adeegyada bulsheed iyo kaabayaasha dhaqaale dadka qaar daawaday barnaamijkeenii hore ee Hargeysa ku saabsanaa waxa ay isweydiinayaan maxamed maadaama uu yahay nin cilmi baaraa cid kale ma la kaashaday oo midna jaamacadaha oo kale midna dad kale oo aqoon leeyahay oo arrimahan ehel u noqon kara mise kaliya baa intuu wax baarbaaday marka la kicitimay oo baahinay maxamedow runtii markaad xog raadinayso xogtana aad rabto inaad bulshada u soo dhigto waxa la gartaada intaanad geedka la iman ayaa la gorfeeyaa maxamedow haddaan ku dhaahdo barmarka qaar waxay igu kalifaysay inaan saacadaha kulul aan lugeeyo oo aan dadkaan u baahanahay ee waay aragga sidaan soo sheegnay waayeelka xogta haya ee soo jireenka maxamedow haddii kutub laga qorayo waayeelka iyaga wadanka u cilmi badan oo maxaan ku dhahday dhaxal bay u reebi lahaayeen bulshadeena waxbarashada inta badan maxamed marka jaamacada ay eegno de caalamku sidoo u fiday iyo sidee yihiin iyo caalam baa lagaaga sheekeynaya laakiin maanta Somaliland waxyaabaha ay u baahan tahay baa waxay ay tahay baahida jirta in wadankii laftiisa wax laga reebo wadaygan maanta dhimanaya ee wax garadka laakiin odagaasi taariikhdi iyo ilaa 2016 buu taagan yahay maanta iyo tirada Hargeysa uu korodhay iyo ballarka ama ballaca Hargeysa
dee odaygu ma ogee aqoon kale iyo qalab kale iyo haddii aabahayid ma iyo mastarad kale oo la saaro baa jirta baa jirta loo baahanay waxaa jirta jaamacadihii waxaa kaloo jirta laydhkii hay'adaha caalamiga maxamedow waxaa jirta xogo fara badan oo lacag lagu bixiyey anigu ilaan xogteedan hay'adaha caalamiga ay sameeyeen UN Habitat oo kale waxa oo kale dawladaha hoose la shaqeeya kuwa maxamedow buugaagtoodan ba iyaga raadiyay oo buugaag bay mid waliba ay ka qoreen magaalo kasta iyo siday tahay iyo waxay tahay oo iyagu marka ay ku saleen ku fududeeyay xogahan kale ee xooga korontada benefitska jaamacadaha laftooda booqashooyinka markaad eegto iyagu laftooda maxamedow ma oran karo jaamacadu way ku baraarugsan yihiin inay magaalada ay ka howlgalayaan marka laga reebo jaamacadda Camud aynu u tegi doono ayaan inta kale gobolada aan ku arkay maxamedow jaamacadu kuma baraarugsana waxaan dareemi doonaa in barnaamijka dambe ku daawan dadka tusi doonaa jaamacadda Camud roolka ama ay ku leedahay maxaan ku dhahdaa bulshada iyo waxa ay u dajisay iyo sida ay uga qayb qaadatay iyo aan la xiriiray aan arkay oo barnaamijka soo socday 2 toddobaad kadib aynu marka halkan ka niqaashi doono ayaa caasimada gobolka Awdal ee Boorame iyo xajmigeeda waayaheeda adeegyada bulshada kobaceeda dhinac kastaba waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Saalax Warsame oo loo yaqaano Maxamed Suldaan oo aanu caawa markaa ku gurfeynaynay barnaamijkeena la baxay habeen wanaagsan muwaadinka hufanow xaaladda magaalada Laascaanood dhinaca koboca xajmiga magaalo ahaan iyo tirada dadka adeegyada bulshada ee kala duwan kaabayaasha dhaqaalaha iyo markaa caqabadka waaweyn ee magaalada Laascaanood markaa ka hortaagan horumarka loo baahan yahay inay ku talaabsato toddobaadka soo socdana sidaad maqlaysaan 2 toddobaad kadib waxaanu yara eegi doonayay magaalada saddexaad ee caasimada gobolka Awdal ee Boorame indhihii basaasow Boorame baaragteen waynu Boorame iyo 2 toddobaad kadib aad Maxamed Muxaafid waxaan kale oo halkan uga mahadnaqayaa marka daawadayaasha dhigaha noo raariciyay laga gudbo qolada xagga farsamada noo qaabilsan ee kamarada dabada xagga dambe ka joogta oo uu hormuud u yahay Cabdisaaq Ago tan iyo 2 toddobaad kadib oo barnaamijkii aan raahdee habeen wanaagsan muwaadinka hufanow sidaas iyo nabad geliyo